بسم الله الرحمن الرحيم. سو دواده halkan waxaan ka qaadanaynaa cashirkeenii koowaad oo ku saabsan maadadeenii ahayd epidemiology. maanta waxaan qaadanaynaa marka cashirkeenii ugu horreeyay oo ahaa cashirkii hordhaca ahaa. epidemiology waxaa loo yaqaanaa barashada cudurrada sida faafaan, waxyaabaha go'aamiya iyo xaaladaha kale oo la xiriira. marka waa arkaynaa maadada maanta toobigada ku baranayna ee guud ahaan waxay ka hadlayso. waxaa nooga soo horreeya wax loo yaqaan learning objectives oo loola jeedo ujeedooyinka cashirka loo baranayo maxay yihiin. dhamaadka cashirka waxaa ardayga laga filaa inuu fahmo kow divine epidemiology maxaa la dhahaa inaan fahno. sidoo kale waxaa fahmi doonaa inaan fahmi karno main issues in definition, ereyada ku dhex jiro qeexitaanka gudihiisa oo u baahan in lasii faahfaahiyo waxay si kala yihiin waa arki doonaa. qodobka labaad waxaa ku baran doonaa waxa loo yaqaan historical evolution of epidemiology-ga heerarku soo maray adduunka xilligu soo bilowday iyo dadkii lugta ku lahaa horumarkiisa qaybta ka lahaa. waxaa baran doonaa key uses of epidemiology-ga maxaa loo isticmaalaa, faa'iidooyinkiisa maxaa ka mid ah. ugu dambeyn waxaa arki doonaa waxa loo yaqaan core epidemiology function, shaqooyinka muhiimka u qabto. intaa kabacdi waxaa u imaanaynaa hordhaca cashirkani ama this lecture note will familiarize the student about definition of words which are commonly used in epidemiology. cashirkani waxaa ku baran doonaa epidemiology wuxuu yahay qeexitaankiisa erey ahaan iyo ereyada ugu caansan oo key terms loo yaqaano kuwaasoo loo isticmaalo epidemiology-ga. sidoo kaleeto inta ku jirno waxaan baran doonaa maadadani heerarka loo yaqaano levels of prevention, heerarka hortaga oo primary, secondary iyo tertiary kala ahaa. waxaa baran doonaa duulaha idmo infectious disease in epidemiology, cudurrada faafo iyo qaabkay u faafaan marka loo fiiriyo epidemiology-ga. waxaa baran doonaa oo cashirada soo socda ku baran doonaa source and methods of data collection, sourciga ama ilaha xogta laga helo iyo qaabka xogta loo ururiyo, nidaamyada xogta loo ururiyo. waxaa baran doonaa epidemic investigation, baaritaanada cudurrada loo yaqaan epidemica oo sida la filayay ka badan u dhacayn, sida loo manage gareyn lahaa iyo waxa loo yaqaano surveillance oo dabagalka loo yaqaano oo active iyo passive noqon doonto iyo chaptero kale oo muhiim ah oo maadada qoseeyo. oo imaana marka waxa loo yaqaano epidemiology waxa loo yaqaano. The word epidemiology comes from Greek word. ereyga epidemiology wuxuu ka imaaday asalkiisa erey Greek ah, macnihiisana wuxuu ahaa epi iyo demos iyo logis. waa saddex erey oo compound ah oo isaaran mid kastana macno sameynayso. haddaan ku hormarno midda ugu horeyso epi means on or open yaa lagu magacaabaa, waa kor ama oogada sare. demos waxaa loo yaqaanaa waa dadkii oo people, logisna waa study of. waxay noqonaysaa marka dadkii ama populationkii la daraaseeyo oo wax laga barto in cuduradan dadkay ku dhacaan, dadkay ku faafaan, waxyaabaha go'aamiya noolayaal environmentiga laga helo waayo oo microorganisms loo yaqaan ish aysan qabanaynin. marka dadkii in la daraaseeyo oo wax badan laga ogaado si wixii waxyeeleen lahaa loo arko. haddii si kale u dhigno, the word epidemiology has its root of the study what happen population. epidemiology-ga si fudud waxaa u dhigi karnaa waa waxa dadka ku dhacayo, maadaama dadkii la daraaseynayo dabcan waxaa la raadinaa dadka maxaa ku dhici kara. qeexitaanada kale epidemiology uu leeyahay waxaa ka mid ah epidemiology waxaa loo yaqaana study of frequency, distribution and determinant of disease. waa barashada soo noqoshada cudurrada oo loo yaqaano frequency-ga, waa barashada distributionka faafitaanka cudurrada si ay u faafaan, iyo sidoo kaleeto determinants of disease cudurrada waxyaabaha go'aamiyo macnaha sababo yaa lagu bartaa. sidoo kale waxaa lagu bartaa epidemiology-ga other related conditions, xaaladaha kale oo quseeya caafimaadka kuwaasoo inta badan la xiriira human population. sidoo kaleeto application of this study to promotion of health, prevention and control of problem. maadaama epidemiology lagu barto frequency-ga soo noqoshada cudurka, lagu barto distribution of disease faafitaanka cudurka, determinant of disease cudurka maxaa sababo oo go'aamiyo, iyo xaaladaha kale oo cudurka aan ahayn sida dhaawacyada uu qoseeyo. waxaan rabnaa marka frequency-gaas iyo distributionka iyo determinantiga anagoo ka fiirinayn inaan ku apply gareeno in caafimaadkeena kor looga qaado, cuduradan looga hortago, lagu xakameeyo waxa loo yaqaano health problemska, dhibaatooyinka dhaga caafimaadka dadka soo wajihi kara. epidemiology-ga sidoo kale waxaan ku qeexi karnaa study of anything that happen to people, waa wax kasta oo bulshada ku dhacaa in la barto yaa waxaa loo yaqaanaa epidemiology lagu magacaabi karaa. sidoo kaleeto major component of definition, qeexitaanka waxaa ku jiray ereyo root ah waaweyn. waxaa ka mid ah wax loo yaqaan population. populationka waa dadkii, waa bulshadii, waa the main focus of epidemiology is a vector of disease on the population. waxa ugu weyn oo diiradda u saar epidemiology-ga waxaa waaye
dadka waxa ku dhaco gaar ahaan cudurrada dadka ku dhaco iyo epidemiology xoog saara rather than individual. marka laga tago shakhsiga ilaan shakhsi wax ku dhacay bulsho waa kala wen yihiin marka la fiiriyo dhanka halista oo mobility-ga ah iyo dhanka mortality-ga oo dhimashada ah. tusaale waxaa ka mid ah malaria kaleet waxay ku dhacdaa dad fara badan oo Ethiopian ah ama Kenyan ah ama Soomaali ah, laakiinse lung cancer-ka marka la fiiriyo wadamada socota aan sheegnay reeray ku yihiin. sababtan waxay tahay dadka lung cancer qabo oo ku nool Africa gaar ahaan East Africa Soomaaliya way yar yihiin marka loo fiiriyo dadka malaria qabo. marka epidemiology maadaama dadka u daraaseeyo wuxuu diiradda saaraa cudurrada ugu waaweyn oo dadka ku dhaco sida malaria kaleeto. if individual develops lung cancer haddii shakhsi uu ku dhaco kansar ku dhaco sanbabaha, it's more likely she will die. qofkii waa u dhiman karaa cudurkii oo cudur halis ah waaye aan la fududaysan karin, laakiinse numberka uu khatarta gelin karo ama uu dili karo waa ka yar yihiin numberka malaariyada ay dili karto ama khatar ay gelin karto. even through the lung cancer is small killer, inkastoo lung cancer uu dhahay dilaa uu yahay oo cudur khatar uu yahay, epidemiology haddana wuxuu diirad saaraa xoog saaraa malaariyada maadaama dad badan ay ku dhacayso. marka qeexitaanka erayga ugu horreeyay ka dhex muuqday waxaa ka mid ah population, waxaana ka dhex muuqata dabcan in populationka epidemiology-ga xoog uu saarayo markii loo fiiriyo lung cancer-ka. isla definition-ka waxaa noogu dhex jira er loo yaqaano frequency waxaa loo yaqaanaa shows that epidemiology is mainly quantitative science. epidemiology-ga badanaa waa cilmi qoseeyo quantity-ga cadada tirada waxyaabaha la xiriira. epidemiology badanaa wuxuu qoseeyaa frequency occurrence of disease rather than and other health related conditions. badanaa wuxuu qoseeyaa soo noqoshada cudurka ama dhicitaanka cudurka. ilaa waxaa tirinaynaa cudurkan meeqa qof ku dhacay oo loo yaqaan incidence rate-ka, meeqa had uu ku dhacay oo koreysatay, hadda meeqa u jiifto, mobility meeqa khatar u gashay, meeqa u dhimatay. waxaas dhan marka la tirinayo dabcan wax tira qoseeya wax. frequency of disease is measured by mobility and mortality rate. inta badan frequency-ga ama soo noqoshada cudurka waxaa lagu cabiri karaa mobility-ga oo riski loo yaqaano halista cudurka dadka khatarta u geliyey, iyo mortality oo dadka cudurka uu dilay naftooda u galaaftay ee loo yaqaana. qeexitaanka waxaa ka dhex muuqday erey loo yaqaano health related condition, waxyaabaha kaloo caafimaadka qoseeyo. epidemiology badanaa wuxuu qoseeyaa not only with disease, cudur oo keli ah diiradda ma saaro, sidoo kale diiradda wuxuu saaraa uu ka hadlaa health related conditions, xaaladaha kaloo caafimaadka qoseeyo. sababta waxay tahay wax kastoo nagu hareereysan nolosheena, wax kasta oo sameynayno waxay saameyn ku leeyihiin caafimaadkeena. health related conditionska inta badan si toos ah ama si aan toos ahayn iyo waxay u saameeyaan caafimaadkeena. kuwaasna waxaa ka mid ah oo loo yaqaano health related conditions. waxaa ka mid ah dhaawacyada injuriska, waxaa ka mid ah dhalashada markay ilmaha ay dhalanayaan dabcan jug iyo waxaa soo gaartay dhibaatooyin. waxaa ka mid ah health related behavior, dabeecadaha qalafsan oo caafimaadka dhibaayo sida sigaar cabidda, shaqo la-aanta iyo waxa loo yaqaano poverty-ga. kulligood markaa fiirino dabcan cudur hadda aan naqaano ama jeermis ma ahan, laakiinse si toos ah ama si aan toos ahayn iyo waxay u sababi karaan waxa loo yaqaano dhibaatooyin. markaa soo qaadan smoking-ka 100% lama dhihi karo wuxuu keenaa lung cancer, laakiinse dadka cabo waxay khatar ugu jiraan inuu ku dhaco cudurka loo yaqaano lung cancer-ka. unemployment-ga shaqo la-aanta dabcan cudur 100% ma sababto, laakiinse waxay la xiriirtaa stresskii iyo welwelkii, saameyn waxay keenaysaa indirect ah oo qofka caafimaadkiisa ay ku sababi kartaa. poverty-gana qofka ugu yaraan ma isdaaweyn karo oo ma isbaari karo oo facility-gii iyo waxyaabihii transportation-kii ma heli karo, iyadan waxyaalo kale ay noqonaysaa. distribution waxaa loo yaqaanaa cudurka si u faafo. distribution waxaa lagu qeexaa geographical distribution of disease, faafitaanka cudurka marka loo fiiriyo deegaan ahaan. distribution in time annagoo ka fiirinayno waqtiga cudurka uu faafo. distribution by type of person affected, dadka cudurka ku dhacay annagoo ka fiirinayno. dabcan distributionka waxaa loo fiiriyaa un cudurkan goormoo dhacay iyo ku dhacay iyo xillimoo dhacay, intaa laga fiiriyaa. qodobka shanaad oo qeexitaan ka muuqda waxaa loo yaqaanaa determinants. determinant waxaa loo yaqaanaa cudurka maxaa sababo, maxaa go-aamiyo. determinant waxaa loo yaqaanaa factors which determine whether not person will get disease, oo waxyaabaha go-aamin karo cudurka ma dhacaa mase ma dhacayo. oo dabcan waa wax uu dambeeyo oo cudurka dhicitaankiisa mas-uulka ah waxaa loo yaqaanaa determinantska. qeexitaanka waxaa ka dhex muuqda waxaa loo yaqaana application of the studies to promotion of health, prevention and control of health problems, in loo isticmaalo in cuduradii kor maadaama aan dhahnay frequency-ga baranayna in distribution-kii determinantigii in bedelkeedii marka aan u isticmaalno in caafimaadkeena kor loo qaado, prevention of disease cudurkiina laga hortago, iyo sidoo kaleeto in la xakameeyo waxa loo yaqaano faafitaanka cudurada in la xakameeyo. arrinkaa marka macnaheeda waxay noqonaysaa oo loola jeedaa
studying frequency, distribution and determinant of disease, barashada soo noqoshada cudurka, faafitaanka cudurka iyo cudurka maxaa go'aamiyo in lagu ogaado effect disease prevention and control strategy, qaabkii cudurada uga hortagi lahayn sida ugu fiican iyo qaabkii u xakameyn lahayn ee ku baraneena. meesha marka waxa kaga baxnay qeexitaanka epidemiology maxaa la dhahaa iyo erey kasta oo qeexitaan ku dhex jiray macnihiisa in xurkiisu wuxuu ahaa. inta kadib waxaa imaanaynaa sheekada ama taariikhda ay soo martay epidemiology uu soo maray, maadaama culumta inta badan xilli iyo qarni ay kala lahaayeen. taariikhiyan inta badan epidemiology-ga waa cimri dheer yahay, xilli hore soo bilowday xilligii oo dhakhaatiirtii hore Greek ahaa, gaar ahaan qarnigii 5aad soo bilowday kuwii dadkii noolaayeen oo Nabi Ciise ka hor alayhi salaam. inkastoo culumta caafimaadka gaar ahaan kuwa sayniska horumarkoodii ugu weyna ay bilowdeen wixii ka dambeeyey qarnigii 19aad iyo aad u shaaceen, laakiin dabcan wixii ka horreeyey haddana dadka zero ma ahayn, wax waa jireen, bilow waa jiray inkastoo uusan horumarsanayn. dhakhaatiirtii hore oo Greek ahaayeen noolaa qarnigii 5aad iyo hareeraheedii badanaa waa dadkii lagu ammaani jiray inay qayb ka qaateen horumarka culumta, gaar ahaan qaarkood waxaa loo tixgeliyey qarnadii dambe inay yihiin father of medicine. soo kaleeto dhakhaatiirta xilligaas noolaayeen waxay lahaayeen ama dadkii caafimaadka bartay sida traditionalka ama fikiri jiray waxay lahaayeen wax loo yaqaan extraordinary awareness. waxay samayn jireen juhdi badan iyo wacyigooda wuxuu ahaa dadka caadiga wacyigooda waa ka weynaa. inta badan diiradda waxay saari jireen impactiga ama waxyeelada environmentiga uu ku leeyahay dadka caafimaadkooda ama dadka dabeecadooda caafimaadkooda ay ku leedahay. dabcan waxay tuhunsanayeen qofka dabeecadiisa healthy behaviorka inay saameyn ku leedahay qofka caafimaadkiisa, waxyaabaha oo la xiriiro dabeecadaha dadka ay leeyihiin. haddii qofka caafimaadkiisa dabeecadiisa u wanaajiyana caafimaadkiisa fiicnaanayo, hadduu wanaajin waayna dabcan cagsi ay noqonaysaa, jirooyin ay ku dhacayo. environmentiga caadiyin waxaa ka imaanaya cudurro oo hadduu wasakh noqdo environmentigii jeermis ka dhalanaya dadkii dhibi karo. soo kaleeto dhakhaatiirtaas waxay xoog saareen inay ogaadaan bini aadanka waxyaabaha cudurrada ku sababi karo. arrinta marka ugu muhiimsanaa waxay ahayd ingiriiska xilligaas qarnigii 18 dhammaadkiisii iyo 19aad bilowgiisii ingiriiska waxaa ka dilaacay cholera, cudur loo yaqaano nin loo yaqaano John Snow yaa door weyn ka lahaa inuu ogaado cholera wax sababi jiray ee soo ku dhacay. xilligaas marka John Snow wuxuu ahaa dhakhtar ingiriis ah oo Britain ah. inta badan wuxuu sameeyey wax loo yaqaano mal-awaal la xiriiro ama hypothesis la xiriiro su'aal isweydiiyo ahayd cudurkan choleraha London maxaa ku sababay. xilligaas waxaa leeyahay ingiriiska dadka intooda badan waa dhinteen 3 meelood 2 meel camal ayaa dhimatay, dadkii macnaha aad u la-adeen. sababtana waxay ahayd biyaha ingiriiska waxaa siin jiray 2 company oo magacyadooda meesha ay nooga muuqdaan. 2 company oo biyaha siin jiray waxaa dhacday in ay kasoo qaadan jireen sourciga ama webiga dhexdiisa meel wasakh ah oo polluted ah oo qashin lahayd, jeermiskii cholera sababayn ku jiro bacteriadii fibro cholerahi. marka dadkii waxay u sablay gelin jireen biyo wasakh ah oo fibro cholera wato. marka 2 company mid kamid ah wuxuu ku fikiray inuu bal meeshii ka leexiyo yaraan maadaama laga yaabo in wasakhda meesha ay ka imaaday. 2 company midkood markuu ka leexiyey waxaa dhacday in dadkii biyahaas u siin jiray cholera uu ka yaraaday, halka kii ku adkaystayna dadkii dhimashada ay sii wadeen. meesha marka fikir waxaa ka imaaday John Snow uu sii bidaamiyey inuu fahmay wax loo yaqaano in biyaha wasakhda ah jeermis ay ku jiraan cudurkan u sababay, maadaama markii sourcigii biyihii laga leexday 2 company mid kamid uu ka leexday sewage-kii iyo qurunkii oo dadkii cudurkii uu ka yaraaday. marka wixii ka dambeeyey qarnigii 18 bartamihiisii 1949kii ilaa 1854 kambanigaas wuxuu bedelay sourcigiisii oo loo yaqaan lampidka. ugu dambeynna waxaa dhacday in dadkii cudurkii uu ka yaraado. taasna marka waxay keentay fahan ah in wasakhda laga qaado wax loo yaqaano choleraha. John Snow ugu dambeyn marka wuxuu soo gabagabeeyey wax loo yaqaano fikirkiisii in contamination waterka laga qaadi karo cudurka. history marka oo kooban waka oo ku saabsan epidemiology bilowgiisii iyo soo kaleeto doorku ku lahaa dhakhtarkan ingiriiska ah oo loo yaqaano John Snowga. 2 company ayagana biyaha dadka siin jireenoo meesha wasakhda kasoo qaadan jireen. ugu dambeyn midkood uu ku baraarugay in biyaha laga qaadi karo wasakhda. John Snow dabcan qayb uu ka ahaa. epidemiology waxaa loo isticmaalaa waxaa ka mid ah to make community diagnosis, in bulshada lagu baaro
epidemiology badanaa wuxuu naga caawiyaa inaan ogaano qeexi karno healthy problems in community dhibaatooyinka dhanka caafimaadka bulshada ku dhici karo sida waxaa ka mid ah prevalence of anemia waxaa ku ogaan karnaa heerka dhiig la-aanta ee maraysa waddanka waxaa kaloo ogaan karnaa xaaladda nafaqada ilmaha waddanka joogo ma fiican tahay mase waa liidataa laba waxaa loo isticmaali karaa epidemiology-ga to monitor continuously over a period of time changes of health community in si isdaba joog ah ugu ogaano ama si joogto ah ogaano isbedelka xilliyada ay sameynayaan gaar ahaan dhanka bulshada ilaa bulshada waxay sameysaa caafimaadkeeda waa isbedela marna waa fiicnaataa mar dhexaad waay mar waa liidataa marka isbedelkaas in si joogto ah ula soconno waayo hadduu isbedel dhacay muxuu ku dhici karaa tusaale waxaa ka mid ah effect of vaccination program in ogaano waxtarka talaalka uu leeyahay talaal haddii aa sameyn cambaign aa sameyn waddanka EBI ah waxaa ogaaneynaa boqolkiiba waddanka meeqa istalaashay ilmaha meeqa la talaalay haddii ay yaryihiin sababta maxay tahay inaan ogaano health education aa u isticmaali karnaa wax loo yaqaan epidemiology-ga dadka inaan wacyigelino sidoo kaleet waxaa u isticmaali karnaa nutritional supplementation in dadkii nafaqo ah siino u qaybino epidemiology waxaa loo isticmaalaa to practice surveillance inaan dabagal sameyno gaar ahaan cudurro gaar ah si awoodda ugu yeelano to act quickly so at cut short any outbreak waxaa yareyneynaa ama waxaa badbaadineynaa inuusan cudurkii noqonin cudur outbreak ah outbreakan waxaa loo yaqaanaa cudurkii sidii la filayay inuu si ka badan u dhaco macnaha si lama filaan ah cudurkii u dhaco aan la filaynin for example haddii koleeraha uu dhici jiray sanadkii muqdisho hadduu ku dhici jiro kaleeto 1,000 qofood sanadka xiga hadduu tusaale ahaan oo kale 10,000 uu ku dhaco ama 10,000 waa badan tahay hadduu 3,000 hataa ku dhaco waxay ka dhigan tahay cudurkaas outbreak oo sababtoo ah inta la qiyaasayay ama u dhici karo markii loo fiiriyo dhaqankiisa ilaa cudurka waxaan naqaanaa soo noqoshadiisa isu faafaa naqaanaay waddanka hadda ugu horeysay hadduu sidii la filayo ka bato epidemiga dhehenaa ama outbreak dhehenaa marka dabagalkaas marka wuxuu keenaa cudurrada gaarka ah inaan ciyow ogaano suusan cudurkii nooga noqonin outbreak suusan nooga noqonin ama u hortagnaba cudurkii aan yarayno aan dhinno khasaarihiisii to investigate an outbreak of communicable disease inaan baaritaan ku sameyno cudurrada outbreak ah gaar ahaan kuwa faafa inaan taxliilino sababta u dhacay sidoo kaleeto inaan u diyaarino daawooyinka la gaari karo oo la heli karo cudurkaas loogu talagalay iyo inaan qiimeyn ku sameyno effective of remedy on outbreak saameynta daawada ay ku leedahay cudurkan faafayo oo outbreak noqday waxaa loo isticmaalay epidemiology-ga to plan effective health service in adeeg caafimaadka uu noqdo mid tayo leh waxtar leh adeega wanaagsan oo sidii loo rabay loo sameeyey effective service intervention xanaanada iyo bukaanada loo sameynayo daryeelka iyo sidoo kaleeto remedies all depend on accurate community data dadkii daawo sax inay helaan daryeel sax ay helaan xanaano sax ay helaan daryeel ama adeeg caafimaad oo quality inay helaan waxaas oo dhan waxay ku xiran tahay in la helo xog saxan oo dhanka bulshada in la helo ku xiran tahay epidemiology wuxuu leeyahay wax loo yaqaan core epidemiologic function shaqooyin wuxuu leeyahay muhiim ah oo principal ah shaqooyinkaas waxaa ka mid ah public health surveillance bulshada caafimaadkeeda in lagu dabagalo si haddii cudur yar u dhaco la ogaado maxaa sababay yuu ku dhacay intuu ka dhacay si cudurka intuusan ballaaranin yow u hortagno field investigation inaan meel booqano oo xarun booqano yaa baaritaan ku samayn karnaa dabagal ku samayn karnaa waxaa samayn karnaa analytic studies baaritaano dheeraa samayn karnaa oo dabcan oo waqti xalalkaas aan ahayn ama future-ka inaan sameyno prediction ama wixii lasoo dhaafay ama waqtiga la joogo intaba wax quseeyo waxaa samayn karnaa evaluation markaa mashruuc sameyno kaleeto ama hawl aa qabano in hawshii inay guuleysatay in kaleeto yaa ku xaqiijin karnaa epidemiology-ga anagoo sameynayn evaluation leakage samayn karnaa laba shay wax ka dhexeeya biyaha wasakhda iyo cudurrada caloosha ku dhaca maxaa ka dhexeeyo kaleeto gacmaha la iska dhaqin iyo cuntada la cuno dabcan laba shay waaweyn maxaa ka dhexayn kara xiriirkooda cudurkaasoo ku dhici karaa waxaa ku shaqooyinka epidemiology ka mid noqon karo muhiimka ah policy development sharciyada lagu horumarin karaa maadaama cudurrada qaarkood meelaha qaar ay ku badan yihiin geographically in sharciyadii wax laga bedelo si dadkii loogu sahlo waxaa samayn karnaa evaluation oo idan aan soo aragnay waxaa epidemiology uu leeyahay wax loo yaqaan scope waxaa loo yaqaanaa baaxadda ama awoodiisa intay la eg tahay epidemiology-ga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha diiradda lagu saaro xoog uu saaro waxaa ka mid ah epidemic of communicable disease cudurrada faafo kuwooda epidemicska ah oo sidii la filaya badanaa ka badan u dhacaan yaa badanaa xoog lagu saaraa si cudurkii loo dhimo khatartiisa mobility-ga iyo mortality-gana u yareyno qarnigii 20aad kala barkiisii waxaa jiray wax loo yaqaano epidemiologic methods had been developed and applied waxaa jiro habab badan epidemiology quseeyo oo lasii hormariyey inkastoo culumta caafimaadka qarnigii 19aad xoogeeda bilowgeeda hana qaaday
haddana mar kasto qarni kastoo ka dambeeyey ama sanad kastoo ka dambeeyey sanadahaas culumtu waa sii hormaraysa waxyaabaha marka lagu soo ziyaadiyey waxaa kamid ahaa oo sii hormaray chronic disease cudurada faafo waxaa rabaa cudurada oo aan faafin oo loo yaqaano chroniga waaweynka ah oo inta badan chronic waxaa loo yaqaanaa cudurka oo raagay gaar ahaan waa cudurada qofka muddada dheer hayn karo sida sahlan aan ku dhicin oo si waxay ku dhacaan onsetkooda waa gradual bilaabashadooda waa tartiib tartiib qofkan waqti dheer ay haynayaan oo qofka durba kama raysto xataa haddii daawo ay leeyihiin qaarkoodna lagama raystaba oo sida sokorta iyo dhiigkarka iyo lagama raysto kuwa COPD-ga ku dhaco langiska qaarkood waa probability in laga raysto qaarkood waa dhici kartaa laakiin waqti dheer oo baahan yihiin daryeel adag u baahan yihiin iyo dhaawacyada oo kaleeto ayagana waxay u baahan yihiin daryeel khaas ah waxaa kaloo epidemiology uu horumariyey birth defect wax loo yaqaano ilmaha waxay ku dhashaan dhibaatooyin waxyaabaha lagu dhasho waxaa kamid ah cleft bladeka cleft lipka in oo macnaha qofka u furuuran yahay oo kaleeto in cagta ay laaban tahay spina bifida wax loo yaqaano dhabarka inuu duleeshan yahay oo kaleeto waxyaaba badan waxaa jira ilmaha ay ku dhalan karaan oo loo yaqaano birth defectska waa cilladaha ilmaha ay ku dhashaan iyo maternal child health caafimaadka hooyada iyo cunugeeda waxyaabaha diiradda la saaray ku jireen oo in ugu yaraan lagu dadaali karo inaysan dhicin oo kaleeto haddii dhacaan in la samayn karo secondary prevention or tertiary prevention waxaa kamid ah occupational and environmental health in cudurada ka dhasha shaqada ama deegaanka ka dhasha ayagana in lagu dadaalo siisan oo dhicin dadka caafimaadkoodana ay u sii wataan now with recent explosion of molecular method maadaama adduunka uu sii hormarayo sanad ka dambeeyo oo heer sal iska leeyahay haddaa molecuulkii la baarayo epidemiologistaha qofka ah oo barta epidemiologiga waxaa muhiim u ah marka inuu baaritaan ku sameeyo genetic maker of disease risk heer waxaa la maraa marka cudurkii genetic xataa ahaa dhaxaltooyadii ku dhici jiray ilmaha caloosha ku jira in laga badbaadiyo haddii hooyadii iyo cunugii daawooyin sax ay qaataan xanaan saxna ay helaan waxaa suuragal ah cunugii waxyaabahii genetic ahaa oo ku dhici lahaa in laga badbaadiyo oo wixii aysan ku dhicin epidemiology badanaa waxaa loo yaqaanaa waa basic science of public health waa public healthga aad u barta maadadan maadaama ay aad essential u tahay inkastoo group kastoo baranaya caafimaadka ama medicine ha noqdaan ama nursing ama public health ama wax kala bartaanay muhiim u tahay maadaama lagu barto faafitaanka cudurka soo noqoshada iyo waxyaabaha go'aamiyo waxay noqonaysaa waa culuum muhiim ah gaar ahaan bulshada caafimaadkeeda muhiim u yahay cilmiga badanaa wuxuu quseeyaa quantitative discipline waa cilmi quseeyo tiro ama cadad maadaama aad tirinayno meeqaa dhimatay meeqaa cudurka qabta soo kaleeto waa method of causal reasoning wuxuu kaloo raadiyaa cudurkan maxaa sababay suu ku dhacay yuu baaraa okay basic epidemiologic approacheska waxaa loo kala saaraa epidemiologiga approacheskiisa laba qeybna waxaa loo yaqaan descriptive epidemiology qaybna waxaa lagu magacaabaa analytical epidemiology markaa fiirina qaybta kore oo loo yaqaan descriptive epidemiology sida magaceeda ka muuqataba wuxuu qeexaa uu sii caddeeyaa si detail ah cudurka waxyaabaha la xiriira sida observe wuxuu sameeyaa observationkii indhayntii kurgalitaankii count cases inuu xisaabiyo kiisaska how many cudurkan uu effect gareeyay uu ku dhacay waxaa xisaabinayna wax loo yaqaan describe wuxuu qeexaa time place person cudurkan goormuu dhacay waqtiga where placeka ku dhacay oo macnaha cudurkan macnaha timeka waxaa rabaa when placeka waa where iyo person who macnaha saddex su-aalo badana isweydiiyaa qaybta analytical markaa fiirino wuxuu xisaabiyaa calculate rate wuxuu xisaabiyaa meeqaa dhimatay meeqaa u jiifto wuxuu xisaabiyaa rate isbardhig ku sameeyana anagoo waddan gudihiisa fiirinayno sidoo kale wuxuu hormariyaa hypothesis wax loo yaqaano inuu dhaho daawadiis waxaa ma la gaari karaa su-aalahan badanaa waa su-aalo la xiriir imagination ama qoseeya su-aalaha qofka cilmibaaraha isweydiiyo markuu sameynayo cilmibaaristiisii ugu dambeynna la rabo inuu kaga jawaabo buuggiisa inuu kaga jawaabo markii daraasa aan sameynayn waxaa khasab inaan leenahay wax niidiina ku jiro oo aan sawiranayno inaan gaarana ay tahay test hypothesiskii oo maskaxda noo ku jiray iyo wax inaan gaarna rabnaa tijaabinaynaa ugu dambeynna waa fulinaynaa anagoo isticmaalayno control and prevention skills waxaa jira epidemiology uu isticmaalo waxaa kamid ah measuring disease frequency in population inuu xisaabiyo dadka cudurkan meeqa mar ayuu kusoo laalaabtay inuu xisaabiyo sidoo kaleeto measuring disease frequency marka laga hadlayo dhowr qodob hoos imaanayso waxaa kamid ah classifying and categorizing disease cudurada in la kala qaybiyo oo group laga dhigo ilaa hadda waxaan naqaanaa cudurada airborne kuwa hawada ku faafo qaar waxaa jira loo yaqaano vector borne oo qaniyada cayayaanka ku faafo qaar waxaa jira loo yaqaano STD sexual transmitted diseases marka group in loo qaybiyo koox laga dhigo deciding what constitute the case of disease in study inaan go'aansano groupkan ama wax aan daraasaynayno haddaba galayna maxay yihiin ku sameynayna baaritaanka
inaan helno source of ascertaining the case, inaan helno wax loo yaqaano cadeymo kiisaska la xiriiro gaar ahaan waxaan intay ka imaanayaan, inaan qeexi karno population at risk of disease, yaa khatar ugu jiro, bulshada khatar ugu jirto. bulshada Soomaalida meelo badan ay degan yihiin, gobollo badan, gobolkee ama degmadee ama tuuladee khatar ugu jirto. waxaan inaan qeexi karno period of time of risk disease, xilliga ama waqtiga cudurka khatarta uu yahay oo weyn ahaa. waxaan raadinaynaa obtaining permission to the study people, dadka aan daraasaynayno xogtooda abaarayno inaan fasax ka helno, haddii aan lahayd dhanka mas-uuliyiinta sharciga meesha ka jira, iyo haddii aan lahayd bulshada lafteeda. marka wax la weydiinayo qofka waxaa laga codsadaay iskama weydiiyo. making measurement of disease frequency, inaan cabiri karno, aan tirin karno soo noqoshada cudurka. sidoo kale relating case to the population and time at risk, inaan raadin karno cudurka kiisaska bulshada oo la xiriiriyaa waaye macnaha who, iyo sidoo kaleeto waqtiga cudurka khatarta uu yahay waa xillima. Epidemiology waxaa loo kala saaraa laba qayb oo weyn. It is very important to understand distinction between descriptive epidemiology and analytic epidemiology. waxaa muhiim inaan fahanno maxaa farqiga u dhexeeya epidemiology nooc loo yaqaan analytic iyo nooc loo yaqaano descriptive. haddaan ka hormarno descriptive wax badanaa wuxuu raadiyaa seek to measure the frequency which disease, wuxuu raadiyaa soo noqoshada cudurka. sidoo kaleeto collect descriptive data on possible causal factor, sidoo kale wuxuu soo ururiyaa xogta qeexayso ama raadinayso cudurkan maxaa sababay, maxaa keenay. analyticalka wuxuu isku dayaa asaga inuu isbasbay gareeyo, inuu qeexo oo caddeeyo more detail the cause of particular disease, cudurada gaarka ah maxaa sababo si faahfaahsan asoo raadinayo. badanaa wuxuu ka hadlaa wax loo yaqaano cause and effect, sababta iyo waxyeelada cudurka. cudurka markuu dhaco waxaana sababay, maxaa ka dhalanaya effect ah iyo wixii la midka ah. sidoo kaleeto qeexid loo dasaarno analyticalka. descriptive-ka badanaa wuxuu ka hadlaa examine distribution of disease in population, wuxuu ka hadlaa faafitaanka cudurka bulshada dhexdeeda. observing basic features of its distribution in terms of time, place and person, wuxuu ka fiiriyaa marka faafitaanka cudurka anagoo u fiirinayno waqtiga, meesha iyo dadka. badanaa wuxuu ka jawaabaa descriptive-ka who, what, where, cudurkii ku dhacay. waxa loo yaqaan what, maxaa waaye cudurka oo keenay, iyo where intuu ka dhacay. badanaa su-aalahaasuu ka jawaabaa. typical study design-ka loo isticmaalo ama naqshada loo isticmaalo waxaa ka mid ah community health survey, approximate genome cross-sectional study oo descriptive study. design waxaa jira lagu barta researchka, sidoo kaleeto lagu barta epidemiology-ga aan ku baran doono, oo ay ka mid tahay wax loo yaqaana cross-sectional study, oo macnaha ay tahay waqti xaadirkaas aan taagannahay in cudurkii aan baarno anagoon eegaynin wixii la soo dhaafay iyo wax future-ka aan saadaalinaynin, laakiin isla xilligaas cudurka aan baarayno anagoo ka fiirinayno time-ka, place-ka iyo person-ka. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa analytic epidemiology. badanaas wuxuu sameeyaa specific hypothesis about relationship of disease to operative cause. badanaa wuxuu raadiyaa xiriirka dhexeeya kayska ama cudurka iyo waxa loo yaqaano cudurka maxaa sababay, soo sameynaya waxa loo yaqaano exposure interest of disease of the interest. badanaa wuxuu fiiriyaa cudurka, wuxuu yeelan karaa waxa loo yaqaano dad cudurkii u banbaxay oo cudurkii dad qabeen la kulmeen. marka dadka noocaas oo kale waxay noqonayaan dadka cudurka u nugul exposure maadaama ay sameeyeen. dadka exposure-ka aan sameynin waxay noqonayaan dadka cudurkii laga yaabo inuusan ku dhicin. key features analytic epidemiology uu ka jawaabo isbardhig waxaa ka mid ah inuu ka jawaabo why and how, cudurkan muxuu u dhacay. iladaa waxaa dhahanay wuxuu ka hadlaa effectiga iyo cause-ka, cudurkan why uu dhacay iyo how siduu ku dhacay. sidoo kale wuxuu ka jawaabaa design-ka uu isticmaalo waxaa loo yaqaanaa cohort and case control. waxaa loo yaqaano case-kan marka la baranayo epidemiology waxaa jiro designo, waxaa jira dabcan waxyaaba ishoos yimaado. waxaa ka mid marka wax loo yaqaano markaan daraasaynayno dad cudur ku dhacay iyo dad uusan ku dhicin, ama markaa daawo soo saarayno kale waxaa jira wax la dhahayo case iyo wax loo yaqaano control. daawooyin marka la sameynayo laba group dadka loo kala saaraa, groupna case aa loo bixiyaa, groupna control. group waxaa lagu baraabayaa daawo blebka loo yaqaano oo daawo sax aan ahayn, laakiin daawada lasoo saaray oo eg si ay u maleeyaan daawada inay cunayaan. groupna tii saxda la siiyaa. waqti kadibna waxaas fiirinaynaa daawadan dadka cudurka qabay ma ku raysteen mise maysan ku raysanin. hadday ku raysteen waa sarabna, hadday ku raysan waayeenna tii horaa la isticmaali doonaa oo balebkeed ahayd. cohorti badanaa study wuxuu quseeyaa frequency of disease in exposed and non-exposed individuals. cohorti badanaa wuxuu ka sheekeeyaa cudurkan yaa exposed oo ah yaanan u ahayn. waxaa ognahay qofka hadduu exposed yahay waxay ka dhigan tahay wuxuu la kulmay uu u dhawaaday qof cudurkii qabo. non-exposed waa dadka cudurka aan taaban. marka non-exposed waxay noqonayaan dabcan dadkii cudurkii aan la kulmin oo aan u dhawaan dadkii qabay. exposed waa dadkii la kulmeen.
The case control study is concerned with frequency amount of exposure in subject with specific disease. dadka oo tusaalahaan oo kaleeta u qoseeyo soo noqoshada cudurka ama exposure-ka sameeyeen waxaa loo yaqaanaa kiiskii cudurkii waa ku dhici karaa. People without disease dadka cudurka aan qabin waxaa loo yaqaanaa control. marka kiiska waxaa siinayna waxaa loo yaqaanaa exposure-ka, kuwa kaleeta oo control-kan waxaa siinaynaa non exposure dadka cudurka aan u bixin. casharkeennii koodmaad meesha ku dhammaaday. aad u mahadsantihiin. wixii su-aalo ah oo soo gudbinaysa insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.